waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ii magacaabay inaan gartay xilkan inaan qabto. waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Garyaqaan Baashe oo soo jeedintiisa uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaan kaloo u mahadcelinayaa qof walba oo ka qayb qaadatay in xilkan ii magacaabo talo iyo tusaalena ku lahayd. si aad wada ogsoon tihiin hilib garsoor oo ay helaan ummadda Soomaaliyeed waxaa aasaas u ah cadaalad. cadaaladdaas oo ay muxuu ahaa aasaas u tahay inay helaan bini aadamka, taasoo sal u ah horumar in la helo, amni la helo. haddii aan cadaalad la helin, amni lama heli karo, horumar dhaqaale lama heli karo. wax walba waxay aasaas u tahay cadaalad. cadaaladana way nuucyo badan tahay oo qofka cadaalad oo ehelkiisa u sameeyo, reerkiisa, gurigiisa, awlaadiisa u sameeyo, iyo cadaalad loo baahan yahay inuu u sameeyo dadka oo dhexdhexaadinayo oo garta ula yimaado. marka cadaaladda meel weyn ay uga jirtaa bulshada islaamka iyo bulshooyinka dunida oo dhan. haddii aan cadaalad la helin waxaa loo noolaanayaa sida xayawaanaadka, oo xayawaanaadka qofba qofku ka xoog badan yahay oo ugaarsadaa oo dilaa. marka cadaaladda qof walba oo xaq leh xaqay siisaa, daalimkana waxaa waaye dulmigiisa u sheegtaa. marka cadaalad haddii la waayo ilaahay xataa noo naxariisan maayo, oo ilaahay wuxuu u naxariistaa dadka isku naxariisto oo muxuu ahaa qof walba xaqa uu leeyahay oo siiyo. mushkiladda dalkeena ka jirto waxaa waaye burburaan kusoo jirnay muddo dheer, 30 sano ah. dadkii waxbay kala dhaceen, waxbay kala haystaan, waa isdileen. qof walba marka wuxuu dareemayaa cadaalad darro iyo qof kale. marka inuu si cadaalad loo helo waxaa muhiim ah in lagu kalsoonaado garsoorka. marka waxaan ku dadaali doonaa haddii ilaahay yidhaaho in dadka ay garsoorka u sinaadaan. maxaa yeele garsoorka haddii loo sinaado waxaa imaanayso cadaalad. garsoorka hortiisa waa in qofka madaxda iyo qofka kaloo shacabka ay u sinaadaan, oo uu qof walba aaminsan yahay inuu helayo xaqa uu leeyahay. sidii aad kulley wada ogsoontihiin xadiis waxaa jiray nabiga ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam oo ah haddii uu qaato qofkiinan shariifka waa ka tegaysiin, haddii uu qaato qofka daciifkaana xukunkaa lagu fulinayaa. marka xukunka iyo cadaaladda waa inay noqdaan sawaasiya, inay dadka muxuu ah ay noqdaan. waxaa kaloo jira Soomaaliya waxyaabaha curyaaminta u keenay waxaa ka mid ah musuq, oo ah hay-adaha dawliga qaar badan oo lamid ah, qaar badan oo kamid ah la degay, oo hadda dawladdan ay reform ku hayso. oo muxuu ahaa musuqana waxaa waaye waxyaabaha sababa ummad inay horumar weyso. marka waxaan ku dadaalaynaa haddii ilaahay yidhaaho in musuqaas aan la dagaalno meel walba uu ku jiro, oo qof walba oo musuq lagu helo ay cadaaladda marto. waxaa kaloo jiro Soomaaliya maadaama burbur badan aan soo marnay, qabyaalad wax la yidhaahdo. dadkii inay qabyaalad wax ku raadiyaan, oo qofkii garsoor soo raadsanayo uu soo wato waasido iyo qof soo wato meeshii oo ka imaan lahaa wixii caddeemihiisa uu ku dacwo lahaa oo keensado dadoo soo maraya asoo aaminsan inuusan toos wax ku helaynin. hadduu ilaahay yidhaaho waxaan rajaynaynaa qof walba inay garsoorka ku kalsoonaato, xaqa ay leedahan ay heli doonto hadduu ilaahay yidhaaho. waxaan kaloo ku darayaa intaas xilka culus ee naloo dhiibay waa muxuu ahaa mas-uuliyad aad u weyn. mas-uuliyad loo dhiiban qofna waa aad ay culus tahay. mar hadday garsoorka tahayna muxuu ahaa culayskeeday leedahay. marka waxaan ka codsan lahaa in noogula duceeyo xilkan culus ee naloo dhiibay, in ilaahayna waafajiyo cadaaladda iyo sinaanta inaan ugu shaqeyno ummaddeena Soomaaliyeed, aan u gudan xilkan naloo igmaday eexla-aan. waxaan markaan u hambalyeynayaa oo u duceynayaa guddoomiyihii iga horreeyey saaxiibkay Muuse, oo sida aad wada aragteenba shaqo fiican ka soo qabtay maxkamadda gobolka Banaadir. guddoomiye waa mahadsan tahay. kulley dalkaaga iyo dadkaaga aad u shaqaysay, abaalna waa lagaga hayaa. waxaan rajaynayaa inaan taladaada iyo tusaaladaada aan ka maarmi doonin hadduu ilaah yidhaaho. waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka caddeeyo shaqaalihii maxkamadda gobolka oo aan ka codsanaya inay ila shaqeeyaan sidii ula shaqeeyeen guddoomiyihii iga horreeyey saaxiibkay ahaa. anigana aan saaxiib iyo dad aan isla shaqeyno noqon doona. haddii maxkamadda ay noo hagaagto waa noo wada hagaagtay, doon aan wada saaranahay waaye.
wax walba ee dadka naga filanayaan inaan waan ku dadaalno cadaaladda maxaa yeelay muxuu ah wax maxkamadan waxaan habboon inaan imagekeedii wax ka bedelno oo meesha oo guddoomiyaha geeyey aan sare uga qaadno qof walba oo loo adeego oo cadaalad loo sameeyeen asoo ku qanacsan inuu baxo iyadoo la og yahay cadaalad haddaad samayso inay dad diidaya ay jiraan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam la yidhi cadaalad samey oo aad og tahay inuu waxay kusoo degay marka cadaaladda in kulley ay noo noqoto halbeeg aan dalkeena iyo dadkeena ugu shaqeyno ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ka codsado wuxuu ahaa wada shaqeyn bahda cadaaladda oo ay isku jirto garyaqaanada booliska maxkamadaha noocyadooda kala duwan anigana waxaan ballan qaadayaa intii karaankaya inaan shaqadeeda ka soo baxo waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu